دكتور محمد الله نستقبل أبنا. ممكن دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكسو دوادا لمان محيطو بهذا عافماتك نقلص سوق بش برنامج كان ومحيطو سوق مقابسة سومالي أورثوبيديك أسوسيشن إيو سومالي فيزيشنز أسوسيشن ومرتين نوغوية هاي دكتور محمد عبد الله آدم محيطو دكتور كتخصص cudurrada guud iyo ku jirta oo ka howlgala isbitaalka jaamacadda Jazeera iyo Dr. Bashiir oo maxay ku magac dheer Dr. Bashiir Indhacade oo asagana maxay dhakhtar qaliimada iyo daaweynta lafaha kana howlgala isbitaalka Dabiib Hospital. waxaa barnaamijka noogu qornaa Dr. Xasan Fiidow inuu moderator noo noqdo oo noo daadihiyo laakiin dictorka qalliin degdega uu kusoo baxay oo qalliin uu galay qalliin uu ku jiro insha Allah marka uu kasoo baxana insha Allah tacaala naga soo gaari doono haddii Ilaahay idmo. موضوع وحكى لي موضوع آدي مهم وآه ومحيه bahda caafimaadka يعني dhinacyada kala duwan muhiim u ah isla markaasna ah موضوع محيه rheumatism-ka oo محيه rheumatoid arthritis-ka insha Allah waxaa noo bilaabi doona Dr. Maxamed Cabdullaahi oo aan insha Allah si fiican uga faa'iideysan doono qaybta oo medicalka maxيه iyo cudurka guud ahaanba kadibna Dr. maxيه Bashiir Indhacade ayaa u gudbi doona haddii Ilaahay idmo. hadda waxaa kusoo dhaweynaa Dr. Maxamed Cabdullaahi Aadam. Dr. soo dhawow. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. dhaqaatiirta ururka dhaqaatiirta ortopediga Soomaaliyeed iyo dhammaan bahda caafimaadka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maanta waxaa aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato soo jeedinta CME-gan oo ku saabsan cudur weliba aad muhiim u ah adduun weynaha iyo Soomaaliya. weliba cudurkan anaga hadda Soomaaliya nahana uu nagu yaryahay wax hadda rheumatologist ku takhasusay inuu joogo wadanka. marka hawsha waxay ku soo adeegatay primary health care iyo secondary internal physician-ka orthopedic-ka inta badan markii laga hadlayo rheumatism-ka waa super specialty. in general haddii u baahan tahay inaad rheumatology noqotid worldwide waxa u baahan tahay inaad physician noqotid 4 years ama 3 years ka bacdiina aad super specialty markaas rheumatism la dhihi karaa rheumatologist. marka alla kali adduunka dhan uu ku yaryahay Mareykanka kale waxay dhahaan 0.5 per 100,000 patients qaabilo macnaha waa ku yaryahay hal xataa ma haystaan 100,000 oo in USA wadabood marka Africa iyo meelahaas. marka maanta waxaa ka hadli doonaa inta badan presentationadiisa mechanism-kan disease-kan wuxuu yahay maadaama rheumatology-gana uu lafaha kaliya uusan ahayn hadda laga gudbay in lafaha bas laga hadlo oo aanan ahayn waxyaabaha loo dhimanayo inaysan lafaha ahayn la ogaaday systemic features-ka iyo waxyaabaha la socdo qaabka loo daweeyo oo aan naqaano is xasuusin doono iyo optionada tirada badan ee hadda soo baxay maxay yihiin. haddaan fiirino USA ka waran bukaan lagu bixinayo daweyntiisa intaasoo 4.8 billion per year ha ahaato dawadii weliba dawooyinka hadda soo baxay ugu fiican rheumatology-ga waxyaabaha ay dhahaan biological-ka aad ayay qaali u tahay haddii la dhaho cirbadda waxay maraya 500 meelahaas. marka isku aad ana wal waxa uga baxa Mareykanka 19.3 billion dollar not million. marka incidensiga cudurka ma badan yahay waa annaha boqolkii qof 1% waaye inta badan labada waqti ugu badan la arkano female-ka maadaama inta badan autoimmune-ka oo macnaha halis ugu jiraan female-ka predominant all autoimmune-ka marka waxa la dhahaa female predominant disease. marka female-kana xilliga 30 jirka ilaa 40 jirka ayuu ku badan yahay. male-ka rheumatology-ga lagama waayo waa laga heli karaa laakiin ayaga da ahaan markii 60 ka weynaadaan ayaa lagu arkaa. marka hadda ratio-ga fiirisiin waxa waa 3 to 1% inay ka yihiin 3.7 oo woman-ka ah iyo 1.6 female-ka ah. waxaa la cudurkan genetic haddii genetic la helaana macnaha hooyada haddii qabta habarta laga heli lahaa. marka genetic somehow wuu yahay laakiin geneticas waxa waa qofkii qaba genetic susceptibility-ga wuxuu halis ugu yahay inuu noqdo macnaheedu maahan qof walba oo genetic inuu sida autosomal dominant X-linked aan naqaano qasabtaa in qof walba laga helo. taas waa haddii genetic sax ah lahaa 1% ba noqon lahayd. marka genetic epigenetic iyo waxyaaba environmental isku xiriira ayaa keeni karo. marka environmentalka waa tobacco smoking ina viral infection lagu dhaco exposure silica maadooyinka la dhaho iyo inaan jiimankan haysano intaas haddii isku tagaan qofka markaas ayuu wuxuu yeelan doonaa cudurka la dhaho rheumatoid arthritis. marka cyclada intuu qofka classically calaamadaha saxda intuusan ugu imaan rheumatology-ga
rheumatoid arthritis-ka wuxuu bilaabaa yaan macnaha qofkii intuusan xanuunka dareemin oo dhibaatada anaga aragna is yeelan ka hor ayuu dhacaa. Marka waxaa arki doontaa qofkii genetic risk qabo, hadduu environmental exposure yeesho, smoking waxyaabahaas, kabacdina waxaa imaanaya immune systemka inuu macdo. Marka mainly immuneka imaan doona waxaa waaye qofkii immunekiisa weliba waxaa la IgG-gii caadiga ahaa oo loogu talagalay inuu dadka long term difaaco in maanta asagii qalad loo arko oo antibody la sameeyo. Marka rheumatoid factorka la dhahayo waxaa waaye waa IgG antibody oo haddana IgM loo sameynayo si macnaha waxa misdirected immune inuu sameeyo. Misdirected immuneka wuxuu ka imaan doonaa genetic iyo smokingkii, environmentalkii waxyaabahaas. Antibody-ga labaad ugu muhiimsan asaga wuxuu ka imaan doonaa inaad genetic yeelatid, inaad environmental yeelatid iyo proteinka la yiraahdo citrullination. Marka CCB again antibody macnaha protein muhiim jirkeena ah ayaa si qaldan loo sameyn doonaa, haddana proteinkaas ayaa waxaa loo sameyn doonaa antibody. Marka labadaas antibody marka la sameeyo ayaga marka waxay kick off u sameyn doonaan immune systemkeena, complementigii, neutrophilkii, eosinophilkii waxyaabahaas ayaa imaan doona, kabacdina destruction ayaa dhici doona. Marka waxyaabaha hal marka ugu waxaa waa synovitis. Hal marka waxaa inuu qofkii cudurkan wuxuu mainly ku dhacaa synovial jointska. macnaha jointyada haddaa aragtid synovial jointska, lugaha, gacmaha, faraha, every joint oo synovial membrane leh ayuu cudurkan ku dhacaa. Marka synovitiska hal marka ugu yaqaano waaye. Haddii aad ku aragtid lafta torosiga qof ka dhahaya rheumatism torosig ku dhacaya, laakiin halka spineka aan ka naqaano waxaa waaye C1 iyo C1 waa synovial joint, inta kalena macnaha gacmaha peripheral jointiga waxaa waaye synovial joint. Marka cudurada wuxuu ku dhacaa marka synovitis inaan aragno, kabacdina synovitiskaas inuu ligamentigii, boonkii waxyaabahaas destruction ku keenaa. Marka maxaa inta ka xasuusan doonaa cudurkan intuusu kuula imaan rheumatoid arthritis bukaanadaas waxay yeelan karaan calaamad la'aan iyo calaamado oo non specific ah, murqa xanuun, lafa xanuun waxyaabahaas. Haddii marka family history uu jiro bukaankaas oo bukaanada early adduunka hadda Europeanka waxay bilaabeen inay detection antibody-daas iyo genkaas waxyaabahaas ay sameeyaan, laakiin anaga ma haysano. waxyaabaha lagu yaqaano rheumatoid arthritis clinical feature-ka haddaan ogol markii aan ka xasuusnaana genetigas iyo epigenetigas environmental waxyaabo badan waa interleukemia, tumor necrosis waxyaabahaas waxa kicin doona waxa waaye laba antibody in qofka laga helo oo mainly ah rheumatoid factor. Rheumatoid factorna wuxuu ahaa IgG-geena caadiga ahaa oo maanta weeraray IgM oo si qaldan u weeraray. kaas ayaa marka waxaa imaan doona laba IgG antibody maxaa dhacay classic pathway complementiga imaan doono. Interleukinkia waxay u wici doonaa another neutrophilkii, cytotoxic T cells. Marka inflammation, all inflammatory cells you just name it meesha waa ka heli doontaa. Antibody-ga labaadna waxa waaye anti-CCP, citrulline antibody positive. Labadaas antibody haddii la helo problemka meeshaas ayuu ka bilowdaa. Marka ayaga marka waxay keeni doonaan systemic inflammation. Marka immunekan waxaa lahay markii kacaan xilliyada waxay jecel yihiin kastiga iyo qabowga. Xilliga winterka dadka rheumatismka qabo waa xilliga ugu daran because immunekan wuu fadhiisan doonaa jointiga, kabacdina waxay dareemi doonaan joint stiffness waliba early morning waxay qaadanaya hal saac biyo kulub inay isku shubaan, inay farahay jimicsadaan 1 hour. Marka morning stiffness, marka all systemic inflammatory disease waxaa ku arki doonaa cudurkan inuu stiffness leeyahay. Stiffnesskaas waxaa keenay immunekan complexka ahaa oo fadhiista xilliga qabowga, winterka iyo restiga. cudurkan marka waxa waa systemic, you just name it. cudurkan waxaa lahay meel walba ayuu ku dhici doonaa. maanta joint kaliya maahan, madax kasoo bilaabo, timaha kasoo bilaabo, skinka waa u imaan doonaa. marka waxa waa chronic oo systemic inflammatory oo marka major manifestation u yahay synovitis. Yes, qofka rheumatism qasab waa in laga helo sababta way dambeyn doontaa ama way soo hormari doontaa, laakiin inuu yeesho synovitis waa muhiim. haddana maxaa muhiim inay symmetrical ah, qofka jointiga midig haddii laga hayo bidixda laga hayo mainly most common. marmarka qaarkood asymmetrical waa dhici kartaa, laakiin haddaa dhahno 80 to 90% waa symmetrical. haddana maxaa waaye prediction wuxuu u yahay small jointiga, wuxuu weeraraa cudurkan kuwa yararka gacmaha, faraha, ristiga, ankalka, kabacdina yes kuwa weynka u imaan doonaa. marka cudur symmetrical polyarthritis ah oo handkii fiid ku badan yahay. cudurkan neega wuxuu ku dhici karaa only C1 iyo C2 inta kale, laakiin ma arki doonti torosiga iyo ambarka, kuma arki doonti rheumatism sacroiliac hibkayna meelahaasna rheumatismka lagu arko rheumatoid arthritis-ka. other jointiga waaweynkan waa ku dhici karaan. cudurkan monoarticular waxyaabaha differentialka xataa mar walba lagu soo diro waxaa waaye monoarticular
ma dhihi kartid cudurkan waxa waa polyarthritis. Yes, most commonly waxa waaye polyarthritis, laakiin monoarthritis manifestation ahaan u imaan kara. Okay, this is the normal joint. This is the beautiful normal joint. Synovial membrane yellow waaye inta badan. So this is swelling. Synovial membrane immune waxyaabihii imaan doono ka bacdiina si synovialkii clearka ah hadda wuxuu egyahay more oxidation iyo neutrophil iyo waxyaabahaas imaan doono. Geeskan waxaa ka bilaab doona osteoclast activation ka bacdiina bone erosion lafa jajabka iyo waxyaabahaas saas imaan doona. This is the marka picture yar aan ka qaadan karno. cudurkan muxuu yahay? Some patientiga waxaa laga yaabaa marmar qaarkood intuusan synovitis u yeelanba proximal stiffness inuu murqihii dhabarkii garbihii maanta uu ka sheegto sidii polymyalgia of qabo. cudurka inta badan waxaa sudden onset. Shalay waa fiicnaa, maanta uu soo boodo maahan. It should be 1 month, 6 months, 1 year chronic oo si tartiib ah ilaa qofka markuu darsado oo isbitaalka inta imaada. Sababta dhileega keentana waxay tahay qofku uu adkeysanaya, wuxuu dareemayaa qaab uu ku fujinayo stiffnesska, yaa qabowga uu ku fiicnaan doona, wuxuu maleynayaa wax markaa tegi doono. Marka cudur waxa waaye si gradual u bilaaban doono. marmarka qaarkood DVT inuu kula yimaado dadka dhibaatadaas oo stiffnesska macnaha insidioska u qabay waxaa laga yaabaa presentation kuwaadba inuu noqdo DVT ahaan. DVT maxaa lagu qaldaa? Synovitiska wuxuu keeni doonaa popliteal bursa inuu u faafo. Popliteal bursa haddii qaraxdana waxa waaye popliteal cyst inay sameyso. Markaas unilateral leg swelling waxyaabaha differentialka u ah waxaa ka mid ah inay rupture of macnaha dhacdo popliteal cyst. Marka wax kasta uu ku imaan karaa. faktaradana muhiim waa rheumatoid factorka aan ka soo hadalnay iyo anti-CCP-ga labadaasna waxa waaye major. waa dhici kartaa marmarka qaarkood waxaa lahaa 70% waa 30% waxay dhahaan zero negative. qof calaamadihii classica leh haddana RF factor negative waaye, anti-CCP negative waaye. You cannot say this is not a rheumatism. marka waxyaabo badan waa arki doona scoringke ayaa loo baahay. marka 30% waxaa lagama helabo rheumatoid factor antibody-da lama helo. boqolkiiba 70 ayaan soo sheegnay in antibody-da laga helo. bukaanada waxa waa prior clinicalkan waa inuu calaamado polymyalgia, arthralgia, lafa xanuun ayagoo synovitis yeeleen inay jointyada sii xanuunaan laga yaabaa. waxyaaba antibody-da kale laga heli karo waxaa kamid ah maadaama autoimmune u yahay boqolkiiba 17 iyo 32 waxaa laga helaa antinuclear neutrophil antibody oo all autoimmune-ka connective tissue ka sameyn yihiin waa laga helaa. marka haddaa kan heshid ma dhehaysid cudurkaas waaye, laakiin it's just sensitive inuu autoimmune disease socdo. haddii faktaradii kusoo baxaan rheumatoid arthritis ayaa dhihi doontaa. waxaa antibody-da kan laga mid ah inada oo kuwa quantification la sameeyo. SSA waxay dhahaan anti-Rho antibody SSA-ga iyo anti-LAG waxaa la SSB-ga. labadan antibody-na waa laga heli karaa. labadan antibody waxay muhiim u yihiin haddii hooyada qabto rheumatoid arthritis oo Rho ay qabto cunuga oo kale waxaa ku dhici kara lupus. cunuga oo kale waxaa ku dhici doona congenital heart block inuu type 1 bradycardia ku dhashaa laga yaabaa. marka mainly macnaha haweenka leh childbearing age oo haddana laga hela antibody-da in laga baaro waa muhiim because cunuga neonatal lupus ku dhici karo iyo bradycardia waa ku dhici kartaa heart block. So this is the picture aan naqaane. early arthritis wax weyn looma jeedo, just synovitis. qofkan kale waxaa kasoo qaada waa 2 to 3 months hadduu leeyahay farihii inay xoogaa ka duwan yihiin sidii hore swollen yar jiro laakiin deformity aanay jirin. years markii la maro 5 years meelahaas si deformity-da lagu yaqaano waxa waaye cudurkan destructionka bone ka soko laakiin synovial macnaha ligamentigii iyo tendonkii ku hareysnaa ayuu relax ka dhigi doonaa kabacdina lafiya isdaba mari doono. marka metacarpopharyngeal joints-ki ayaa waxay dhici doonaa subluxation kabacdin deformity-dii aan naqaanay. deformity-gan botanid BIB inay noqoto hyperextended, mida kalena ay flexible noqoto iyo swanag deformity-ga. labadaas ayaa kale. aakhirkan waxa waa ulnar deviation-kii iyo very aggressive. qofkan bukaanada hadda waayahan way dhamaatay laakiin anaga Africa maybe we see these people a lot. laakiin hadda adduunka ka dhamaatay deformity-ga in la gaaro because daweynta cudurka wuxuu yahay inay saan noqoto. qof saan hadduu noqdo wax ma qabsan karo, salaadii mid tukun karo, musqushii waa dhibaysaa. marka mainly waxyaabaha lacagta tirada loogu baxshay waxay tahay we have to prevent this deformity-ga. rheumatoid arthritis waxaa dhahaan joint synovitis kaliya maahan. yes, synovitis waa hallmark laakiin hallmark kale uu leeyahay waxaa kamid ah extra articular banaanka uga baxsan yahay general symptomska sidii cuduradii aan naqaanay inay qofkan mild grade fever u yeesho, daal badan u yeesho, weight loss u yeesho,
lymphadenopathy qanjirada iyo baraan qanjirada lagu weeraray oo reactive aan ahayn TB aan ahayn lymphoma aan ahayn haddii qofka rheumatism uu qabo yes lymphadenopathy waa yeelan karaa laakiin haddii persistent si aadan adoo rheumatismkii daawey suspicious waaye anemia rheumatoid arthritis manifestationada ugu badan waa hematological anemiyadiisa waxaa la different manifestation oo kula imaadaan waxaa ka mid ah anemia of chronic disease inflammation waa sooma inflammationka hadduu imaado hepcidin hormoonkii la dhahayo proteinka la dhahayo anta inflammatory marker waa asagana tickets kor ayuu kici doonaa kabacdi ironta ayuu ka celin doonaa RBC hadhow waxaa dhici doona normocytic chronic anemia one of the manifestation waxaa ka mid ah inay normocytic MCV-ga normal yahay qofkiina anemia u yahay waxay kula iman karaan soomaalidan oo kale waxay u isticmaalaan rheumatismka NSAID non steroid inflammatory hadhow maxaa dhici kara qofkii hemorrhage erosion intuu ku dhaco malaina iyo hematomesis iron deficiency anemia another manifestation kula iman kara dawooyinka aan isticmaalno waa arki doonaa methotrexate iyo dawooyin aan isticmaalno dawooyinkaas waxay keenaan pancytopenia dawooyinkaas waxay keenaan folic acid inhibition ku sameeyna megaloblastic marka you just name all anemia aan naqaanay normocytic normochromic anemia even hemolytic anemia maadaama autoimmune samaysmi karo waa laga helaa anemia ayga dadkan cudurrada scleritis iyo episcleritis iyo uveitis oo very dangerous ah waxyaabahaasna wuu keenaa eye manifestation wuu leeyahay lung waxyaabaha loo dhinto waa ka hadli doonaa lung manifestation wuu ku imaan doonaa labada ugu daran waxa waaye lung manifestation iyo heart manifestation inta badan waxa u dhintaan waa labadaas kidney problemkan kidneyga directiga cudurkan uma keena laakiin almost waxay dhahaan secondary kidneyga NSAID ka isticmaalay analgesic nephropathy autoimmune waxaa bata maxay inflammation amyloid samaysma amyloid kidney marka qaab indirect ayuu ku keenaa as macnaha directly ku keenaa splenomegaly uu keeni karaa CNS cudurkan vasculitis markuu keeno hadduu middle cerebral artery vasculitis ka dhaca maxaa ka dhici karo atherosclerosis ka bacdina stroke marka it can cause a stroke waxyaabaha kale carpal tunnel syndrome nephropathy-gaas oo keenaya vasculitis-ka yararka mononeuritis multiplex cuduradaas as vasculitis u keeni kara ama intravenous nerve meeshii maadaama ay barartay oo kaleeto ama nodule uu kasoo baxo kale waxay keeni karaa inay nerve compression medial nerve carpal tunnel syndrome ka naqaan vasculitis marka uu gangrene waxyaabaha cudurkan rhinoid phenomenalka uma badno laakiin yes uu keeni karaa rhinoid phenomenon cardiovascularka labada cudur marka ugu muhiimsan waxa waa hadda rheumatoid marka cudurkan waxa waaye cardiovascularka wuu badiyaa waa anaha dadka inuu dhintaan MI iyo stroke iyo macnaha arrhythmia waxyaabaha soo maaha marka MI oo maanta aanan ka imaanin smoking aanan ka imaanin obesity aanan ka imaanin diabetic aanan ka imaanin hypertension ayay leeyihiin bukaanadan maxay u keeneen because of inflammationkaas ayaa vasculitis keeni doono kabacdi coronary artery because of vasculitis inuu keeno marka haddana pericarditis xididkii kuwa hadlaysa inflammation soo ma pericardial effusion myocarditis marka all dahaaradii saddexdii layer buu sababi karaa marka waxaa dhahan almost 3 point dadka caadiga waxay dheer yihiinba ayagoo qabin risk factorada kale laga soo tago ayay waxay dheer yihiin 3% inay cardiovascularka ku dhici karo marka major cause waxyaabaha dhimashada keena ugu badan rheumatoid arthritis haddii loo dhimanayo ayagaa ka mid ah lung disease sidoo kale interstitial lung disease inuu lungii scarring ku samaysmo fibrosis uu noqdo kale inflammationka ayaa meesha kala imaaday saasoo kale ku sameeya bronchitis inuu haddana bronchial effusion ayuu keenay nodule cudurkan waxaa lagu yaqaanaa nodule inuu skin nodules yeesho lung nodules ayuu keeni karaa marmarka qaarkood xiidada supply gareeyo lungiska ayay xirmi karaan waxay dhahaan bronchiolitis obliterant hadda arka bukaan 50 years old oo asma ah rheumatoid arthritis waay quiz ayaa ku aragtay marka asmo 60 years bilaabanaysa ma jirta soo ma marka I will think about this comorbidity bronchibub markay dhahayaan bronchiolitis obliterant marka waxay dhahaan age-ka asmada waa naqaanaa yaangiga soo bilaataa weynaanta qofka way ku darnaataa ama way baxdaa soo ma laakiin qof after 40 years rheumatoid arthritis soo qabo hadda expiratory quiz ku aragtid rule out this inta badan biopsy ayaa lagu ogaadaa pulmonary hypertension ayay keeni karaan infectionadii caadiga maadaama waxaan immune yihiin kabacdina more immunekiina si fiican u shaqeynayna hadhow infectionadii pneumonia waxyaabahaas medication you know goal standard ku arki doona dawooyinka ugu badan la isticmaalo waxaa kamid ah methotrexate ayada laftirkeeda waxay keeni kartaa lung fibrosis marka interstitial lung disease secondary methotrexate wuu dhici karaa marka anada dhimasho labaad oo keeni karta waxaa kamid ah pulmonary disease labada cudur ugu waaweyn waa how to diagnose marka labadaas cudur inaan xasuusnaado ayaa loo baahan yahay rheumatoid arthritis kuwa kalena marka every system mar walba bukaanka imaado waa scoring ayaa u samayn doona waa fiirin doonaa
marka qaabka u diagnose garayno waa historyga inaan soo aragno polyarthritis early morning stiffness oo 1 hour qaadanayso inay macnaha restiga u daran tahay dhaqdhaqaaqa iyo saacad ka bacdi u fiican tahay waxyaabahaas inaa physical examination inaa sinusitis calaamadihii physical examinationka ku samayn doono oo inaa aragno look iyo feel iyo move inaa dhaqaajino functionka sidee waa uma bararan tahay deformity ku arka waxyaabahaas inaa sameyno iyo laabyadii ka hadlayna CBC oo aan ka fiirin doono ama infection jira ama jira anemia normocytic normochromic anemia iron deficiency anemia iyo waxay la halmaalo inflammatory markerka waa muhiim ESR CRB macnaha sensitive CRB waxyaabahaas waxay sheegayaan how poor it is macnaha the more CRB ama the more ESR aragtid macnaha waa the more aggressive rheumatoid arthritis bukaankaas uu ku yahay biochemistryga u baahnaa soo maaha liver function test baseline-ka markii dawada aad bilaawaysa haddii kale dawada ayaa waxay ku keeni doontaa hepatitis dawada waxay ku keeni doontaa renal failure marka baseline profile-kan waa u baahnaan doontaa yes labadii ugu muhiimsaneed waxaa waaye specific cudurka lagu garanaya rheumatoid factor iyo CCB antibody-ga waa samayn karnaa antinuclear antibody-ga u baahnaa urine analysis already haddii protein urea nephrotic syndrome before that hadduu markaas kugu imaadana waa inaad ka fiirisaa inuu amyloid kidney waxyaabahaas glomerulonephritis leeyahay ama analgesic nephropathy iyo tubular acidosis-kii keenaya inaan fiirina iyo others as needed marmar qaarkood others as needed I mean it rheumatoid arthritis-ka autoimmune waaye another autoimmune ayaa dhici karo SLE connective tissue-ga dhan SLE inaa rulad gareysa loo baahnaan doonaa double strand adversity scleroderma inaa rulad gareysa laga yaabo dermatomyositis iyo polymyositis marka as needed depending about your history of your examination bukaanka ku aragtid waxyaabahaas ayaa u dirsan doontaa radiography baseline radiography qasab waa in la qaato hadda marka momentiga kugu imaadama inaad problem ku aragtid synovitis-ka maxay keenaya osteopenia ku hareeraysan lafaha hortooda iyo inaa erosion-kii aragta laga yaabo marka everywhere uu ka cabanaya marmar qaarkood dadkan guideline-ka anaga ma sameyno just x-ray xataa waa sii bilaaban si loo kala saaro waxaan horeba usoo qabay interstitial lung disease-kii idiopathic pulmonary fibrosis miya mase midkan kale see ku ogaana waa inaa baseline x-ray ahaa haystaa ama markii waxaa ku arkaytaa pleural effusion related to the qofkan uu soo daahay effusion-kii iyo nodules-kii iyo waxyaabahaas ayaa ku arki karaa marka I have to do baseline investigations noocaas waxba iskama bedelin 2009 guideline-kii oo la isticmaali jiray scoring-kii ACR American European-ka labadaba waxa wali scoring-ka sidii waaye the more joint aan iska soo koobno more small joint hadda aragtid scorekaaga uu ku badan doonaa large joint scorekaaga uu yaryahay because periodorman waxaa dhahnay small joints-ka symmetrical ayuu marka the more joint the more score aad samaysid serological kale waxaa dhahnay the more serologiga uu badan yahay titerka fiirin doontaa rheumatoid factor-ka hadda aragtid 200 300 uu yahay this is very aggressive macnaha immediate action laga baahan yahay CRB-ga the same hadda aragtid high titer CRB marka labadan prognostic ayuu ku jira waa arki doonaa acute phase reaction-tiga laftigoodana waxay ku jira prognostica more inflammation hadda aragtid more ESR 200 ESR gaaraya hadda aragtid 200 waxyaaba u baahnaa iyo midda kale duration oo lagu sheegayo soma waa head inuu cudurkan yahay chronic disease more than 6 months inuu jiro macnaha 6 weeks inuu jiro ayaa loo baahan yahay oo macnaha 1 week meelahaas kuma dhaana 1 week cudurada viral infections-ka aan naqaanay Soomaalida kale hadda waxay dhahaan kadoodiyaha oo kaleeto other viral infection can cause symmetrical polyarthritis laakiin maxaa lagu duwaa kuwaas waqtiga duration-kooda 2 to 3 weeks 1 month 4 weeks ka bacdi wuu dhamaanaa like 6 weeks hadda gaaraan I have to rule out rheumatoid arthritis marka scorekaaga uu ku bato more than 6 definitively waxa waa rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis-ka waxaa u baahanta markaad daweynaysa inaad ogtaa baseline bukaankaaga suu yahay laftee xanuunaysa meeqa lafood waaye saa berri markay dawada aasiisa ugu soo laabto lafihii xanuunaya inay keenaan marka score ugu caansan ayaa jira scoreadan das 28 la isticmaali jiray laakiin hadda European-ka iyo American-ka CD-da la isticmaalaa midkan dhexe CD-da wuxuu ku sheegayaa bukaanka meeqa jointia xanuunaya meeqa jointia bararan bukaankan hadday xanuunkaaga ka waran meeqa isku qiimeyn lahaa hadii la aniga 10-kiiba waxaa iska siin lahaa 5-6 ayaa maalintii fiicanahay ESR-kii CRB-ga sheegayni bukaankii adiga patientiga adiga asaas gareynaya adaa fiirin doona functionkiisa muxuu qabsan karaa patientiga pain scoringkiisa meeqa waa waxyaabahaas isku darsan doonaa marka CD wuxuu noo sheegi doonaa this very total jointiga xanuunaya swelling meeqa barasaneed
patientiga siduu u arkaa caafimaadkiisa xanuun aad u daran waa ka shaqa qabsan lahaa iskoorka ugu daran maya nolol maalmeedkii adiga waa ku wataa mid dhexe maya wax ma dareemayo mid hoose marka scoring noocaas adiga bukaanka aad ka qiyaasaysaa bukaanka adiga examination marka ku samaysan scoring gooniya provider global scoring ayaa aad siin doontaa total isku dari doonaa marka totalka fiiri waxa u isticmaalaa sidayda waxa loo isticmaalaa dawada xataa muhiimadda waxaa rheumatoid arthritis inflammatory in eber laga dhigo remission iyo RF iyo CCB iyo ESR very low inaad less than normal inaad keentid ayaa loo baahan ama haddaad dadaashidba gaari weysa normalka waxaa keentaa near to normal marka fiir scoreka hadduu sii bato midka ugu daran waxaa waaye xidhiga midka ugu daran qofka waxaa waaye midka highly waxaa skoorada 28 jointia xanuunaya 28 jointia bararsan intaas marka damoor uu yahay waxaa leedahay aggressive waaye hadduu aggressive yahayna lafaha ka fikirina bukaankaas qofki waxaa ka fikirtaa atherosclerosis iyo waxyaabihii kaleeto hadda dawooyinka waxaa la sheegay hadda la isticmaalaba dawooyinka MI-ga lagu daweeyo aspirin iyo soma rheumatoid arthritis ku dameeya just treat the inflammationka hoos markaa usoo dhigtid cardiovascular problemka dhan hoos ayaa u dhigtay yes dawooyinka isticmaalin doono synthetic DMARDska disease modified antirheumatic disease DMARDskan ayaa isticmaala synthetic anaga midka hadda Soomaaliya available ku ah synthetic way biological kana I think near future ma awood madaxweynaha iyo teamkaas inay awoodaan laga yaabaa laakiin I don't think ina qof Soomaaliya inuu dawadaas awoodi karo because durationka la wadi doono iyo how cost it is marka synthetic DMARDska waagi hore waxaa isticmaali jiray in la isticmaalo steroidska NSAIDka la isticmaalo kabacdina waxaa la arkay inay kuwaas daahiyeenbo lafa jajabka hortigtaanka muhiimadda u daweyna waxaa remission haddaa daahsin lafihii arkay deformity hadda laga tagay oo ahayd ulnar deviationkii swan deformity iyo subluxation jointiga gacantii ninkii xataa furaha uu soo qabsan waaye gluuska uu xiran waaye waxyaabahaas inaa gaadhin hadda lama rabo waana laga dhamaadaba hadda adduunka rarely lama arkaba dad deformity noocaas leh annaga bas ayaynu arkaa marka dawooyinka DMARDka synthetic ayaa hadda isticmaalnaa annaga laakiin hadda adduunka waxaa yaallo biologicals DMARDska kuwa biologicalka TNFka waxyaabihii inflammatory markerka kuwa xiraya waa TNF tumor necrotic factorka xiraysaa B cellkii antibodyada badan sameynaya ayaa xiraysaa T cellkii cytotoxic ayaa xiraysaa interleukinkii waxyaabihii u kacaya marka dawooyinka just magacyadooda muhiim maahan group ahaan waxay sameyn doonaan inflammatory processkii qaldamay ee kacay ayay dejin doonaan markay dejiyaan cudurkii waxaa waa very low remission ayuu noqon doonaa how we can start waa diagnose garana bukaanka waxaa siinaysaa bukaanka 3 months markaa dawada bilaawaysa waxaa leedahay after 3 months I have to see marka kuwa treatmentiga waxaa leedahay qofka mild to moderate hadduu yahay even anaga aan iska soo qaadna Africa joogna waliba Soomaaliya joognaa mild to moderate to severe rheumatoid arthritis you better start marka DMARDs early macnaha u bilaawday DMARDka waxa monotherapy ka bilaabi kartaa monotherapyga bilaawe dawada ugu caansan waxa waa arki doonaa methotrexate marka bukaankan xanuun lahayo lafa bararsan waxa la methotrexate actionkeedana waa arki doonaa waxay qaadataa 1 to 3 months ma la sugi karo Soomaaliya waliba Soomaalida kale waxay qiimeeyaan oo farmashiyaasha iyo waxyaabahaas ugu wada waxa waa isla markiiba qofka inuu xanuun ka tago haddii hal mar NSAID iyo steroid iyo waxyaaba lagu siiyo dameer camal u shaqeynaa Soomaaliya marka bukaanka hadda dhahday methotrexate ku siiyo 2 months ka bacdi oo isoo laaba xanuunka si adkayso markaa yeelayo another option u raasana marka xanuunkiina bukaanka jooji oo isticmaal steroidska bridging samee NSAID isticmaal haddii bukaanka combination isticmaali kartid dadka isticmaala combinationka laba combination aniga almost waxa isticmaala combinationka hydroxychloroquine iyo methotrexate the more macnaha inflammationka badiyaa and responsiga you can feel dawooyinkan biologicalka qaaliga ah just tolerability dhib badan ma hay waa almost side effect ma hay almost as effective waxba kama duwan effectiveness laakiin taas waxa waxay mortality morbidity kuwaas ayaa yareyn doono laakiin kuwan waxay ku xiyeen inaad side effect iyo dose change iyo dawooyin combination markaa sii badis inay ku dhibaan marka qaarkood markii haddii 3 months isbedel waayeen dawadii kor u qaadi doontaa waa arki doonaa marka qaarkood hadduu disease aad u daran ayaga waxay bilaabaan biological response modulator DMARDska oo intestinalki iyo rituximabki iyo infliximab iyo kuwii biologicalka ah ay bilaabaan monotherapy ama combination with methotrexate ay bilaaban karaan DMARDka fiirino waxaa lahayd early treatment DMARDska inaa bilaabno as early as possible target keenan inuu ahaado waxaa dhan sidaay isticmaal 5 joint 6 joint isticmaal 2 bilood ka bacdina waxaa laga yaabaa in hal joint isticmaal that is good response haddii laakiin uu ku dhaco 3 joint xanuuna macnaha laba
option kuu furan inaad dawadaas kor u qaadid inaad dawadaas bedeshid ama dawo kale ugu dartid marka target macnaha waxaa la three to target yeelo oo ah remission ama low disease activity inaad gaarta sameeya initialka methotrexate dooska ugu habboon 10 15 milligram you can start at 10 dawo kaleetan waa la isticmaali kartaa laakiin mostly 15 milligram weekly haddaa maalin kasta bukaankaas u qaato qaladkaas uu dhaca bukaano remember in markaa residentiga sameynayna bukaano daily u maleynaya daily markay qaataan ay ku imaadeen pancytopenia because dawooyinka waxay sameyn doontaa methotrexate maxay sameysaa folic acidka ayay xanibaysaa folic acidka haddii laga xanibo DNA-dan dhan waxay ka samaysantaa marka folic acid marka all cellskii dhammaan oo isticmaali lahaa folic acid waa laga xiray kabacdina waxaad dhici doontaa neutrophilkaagii lymphocytekaagii plateletkaagii dhan waa dhammaan marka pancytopenia qofkii severe bleeding ayay dadka u dhiman jireen oo ah thrombocytopenia marka meeqa waa responsiga demandka 15 milligram haddaa bilada 30% bukaankaa ugu fiicnaana so you can increase maintain you can disease low activity boqolkiiba 30 ayaa ku gaari kartaa methotrexate haddii kuu filnaan weysay ama partial dependent another biological iska bilaabo anaga another biological ma haysan another demandka isticmaali kan waxa waa hydroxychloroquine-kan oo anti-malaria loo isticmaali jiray very good waxa waa anti-inflammatory ay samayn kartaa dawada kale noo taalo waxaa ka mid ah sulfasalazine waa isticmaali karnaa methotrexate dawo xun waaye marka iyada laftirkeeda waxyaabaha macnaha anti-cancer chemotherapy ayaa loo isticmaalaa it has got a lot of action marka bukaan isticmaalaya alcohol anaga ugu badan Soomaalida waa inaan ka ilaalinaa alcoholka maxaa dhacay hepatitis keenaysa ayada maxay keeni kartaa hepatitis qofkii liver failure adoo rheumatoid arthritis ka badina beerka fadhiisin already qof chronic liver disease dheh you cannot steal BC ma isticmaali karta renal insufficiency maadadan methotrexate waxaa lagu sii daayaa clearance-geeda waxaa ka qayb qaato kilida haddii kilidii shaqeyn weyso GFR-kaaga aad u hooseeya maxaa dhacaya toxicity-ga ku abuurma hadhow maxaa dhacay pancytopenia side effect-ga tada badan arki doonaa marka action-kan waxaa dhalanaya 2 to 3 months qaadanaysa 2 to 3 months-kaasna waa inaan sii cover garaynaa pain-kii manage garaynaa function-kii manage garaynaa qofkiina u physiotherapy iyo waxyaabahaas aan u sameynaa folic acid-kan bukaankan methotrexate la raacsiinaya si methotrexate hal maalin la isticmaalay haddana waxaa laga ilaalinayaa inay methotrexate lagu sii daayo folic acid dhan jirka dhamaato marka folic acid lagama reebo waa macnaha protective waa marka waa inaad isticmaashaa folic acid marka maxaa la sameeyaa maalinta inta badan aniga waxaa bukaan u sheegaa maalinta jimcaha because haddii ayada buqaankii looba xataa familka xasuusin karo waa la wada joogaa maalina u asteen garanaysaa maalinta jimcaha qaadaa leedahay marka maalinta jimcaha uu qaadanayo shaqa waxaa ka rabtaa methotrexate-kaaga inay cellskaaga qaldanaa yareysa sooma maalintaas u sii daa maalinta ku xigtana u sii daa laakiin maalimaha kale 5 maalin oo kale soo socoto waxaa sameysaa low methotrexate folic acid iyo dhammayneen folic acid half-life-keeda waa 3 months folic acid ayaa laga siiyaa marka 2 maalin isbuuci inta kaleeto folic acid 1 milligram to 10 milligram inuu qaato waa bukaankaana weydii married miya ma guursan rabtaa haddii kale waxaa waaye noloshii ayaa qofkii tetragenic waaye waa laga fogaadaa contraindicated waa even mailka waxaa lahaa hadduu isticmaalo through spam ayuu ku gudbin karaa marka tetragenicity-geeda is very high marka childbearing age-gana waa in lagala taxadiraa bukaankaas every 2 to 3 months kana ish inaan ku hayaa another demandka isticmaalo sulfasalazine midan ayaa xilliga pregnancy-ga loo wareegi doonaa inta badan anaga aan sameyno oo safe in pregnancy waa ayadana waxay ku xun tahay dooska isticmaali doonto 500 milligram BD isticmaalaa laba waqti laakiin ilaa 3 gram ayaa la gaarsiinaa 3 gram marka dawada waxay ku xun tahay almost burburinta caloosha waqti dheer qaadanaya marka gastritis-keeda nausea vomiting-deeda aad ma jecsanaanaya in macnaha 3 gram la gaaro marka side effect noocaas ayay leedahay tolerability-ga ayaa aad u xun laakiin dawada safe-ka ah demandka ah oo xilliga pregnancy-ga ayada waa levolamide another dawo la isticmaalo waaye not effective sida methotrexate laakiin yes first line second line ay soo geli kartaa hydroxychloroquine ayadana kaligeed lama isticmaalo rheumatoid-ka laakiin combination therapy marmar qaarkood haddaa aragtid very aggressive disease oo aad qofku bararsan yahay haddana air leeyahay waxay dhahaan waxaa isticmaali kartaa triple therapy oo sulfasalazine hydroxychloroquine iyo methotrexate you can use together hal mar ka hadlan tumor necrotic biological inta badan lagana ma shay ma haysano laakiin better know tumor necrotic factors ka alidimab-ka tisamarki all of them waxay isticmaalaan dawo monotherapy ayaa loo isticmaalaa adduunka significant boqolkiiba methotrexate waa ka fiican tahay 60% bukaanadii la bilaabo waxaa la isticmaalaa as infusion costigeeda kale I think Pakistan waxay isticmaalan jireen inta badan Pakistan waxa ka bixin jiray charity
arthritis care wala dhaho charity-gaas lacag aruuriya adduunka wax joogo Pakistan lacag ka aruuriya saas sadaqo ahaan lagu bixin jiray laakiin qof caadi ah infusion one week ayaa la siin jiray ka bacdina weekly inay mar imaadaan iyo baahanta inta la imaan ka hor dawooyinka lalabada iyo waxyaabahaas iyo inuu qofka lahayn contraindication arki doonaa dawadan waa dawada cardiovascularka xilliga rheumatoid vasculitis inflammatory arteriosclerosis dawada yareyn doonta waxa waa TNF tumor necrotic factorska marka cudurro badan oo la isticmaala IBD-ga ulcerative colitis-ka psoriasis arthritis-ka many disease-na approved waa in la isticmaalo TNF active qof infection qabo already immune-ka aad u hoos dhigaysa lama isticmaalo BC lama isticmaalo qof TB hore u qabay ama hepatitis B qabo laga daweeyo very qarsan haddaad isticmaashid wixii dhan waa soo kici doontaa marka kuwaas ayaa la fiirin doonaa contraindication in la isticmaalo okay finally waxaan soo gaarnay factorska isticmaalaya poor prognostic-ga titerka hadduu badan yahay CRP-ga hadduu badan yahay hadduu markuu ku imaanaya bukaankii farqalooca ku aragtid this is a very poor prognosis haddii markuu ku imaanaya aragtid jointiyo tiro badan inay bararan yihiin hadduu markuu ku badan yahay aragtid CRP-ga iyo SR-ka inuu kacsan yahay iyo hadduu ku imaanaya inuu kula imaadaba pleural effusion iyo interstitial lung disease this is a very poor prognosis rheumatoid arthritis okay hal mar exercise yar aan waxaan soo sameynay hal bukaan Soomaaliya ka soo qaadan aan fiirino ex female woman autoimmune soma 30 years old woman ku imaatay bilateral hand iyo ka cabinaysay wristigeeda pain waay for 8 months chronic disease morning stiffness 2 hours 1 hour 30 minutes muhiim ah laakiin 2 hours morning stiffness ayuu bukaanka lahaa ka hor beri clinical muxuu lahaa arthralgia lafa xanuun waxay leedahay 2 sano ka hor laakiin haddii lafa bararka ugu imaado waxyaabaha muhiimka ah waxa waa inaa skin rashki SLE-ga ahaa iyo myositis iyo proximal maxillary weakness iyo waxyaabihii kaleeto connective tissue disease-kii kale lagu yaqaano maadaama mix la dhaho oo laba cudur isku dhici kara mix connective tissue disease tahay inaad ka fakartid oo aad historyga qaada la baahan yahay jail inay leedahay caruur leedahay la soco oo maarid ay tahay dawada qaadan doonta fiiri haddii kaleetana contraceptive inay isticmaasho waa sales woman oo gacan aad macnaha ama dhar ha dhaqdo ama waxa samayso macnaha dhar dhaqo alaabta ha soo laacdo kasoo dukaanka kasoo dejiso qof gacmihiisa isticmaala waa soo hawo muhiim ay u tahay qof gacmo isticmaalaya haddii fariiqa qalocdaan oo fargeeta camal oo laalaaban ay noqoto guluusyaha aan furi karin macnaha effective hold the life soma quality of life-ga dhammaan way noqon doontaa examination markaad samaysid waxaa ku aragtay metacarpal synovitis metacarpal pharyngeal joint-ga inay noqdeen swollen pain yana tender ilayn calaamadihii lagu fiirinayo muscle stiffness ayaa aragtay range of movement-ga gacmihii wareeji sign dheh prayer sign samee reverse prayer sign samee waxyaabahaas dhan some limitation ayaa arki doontaa inay leeyihiin bukaankaas uu lahaa disda marka waxyaabaha every examination of joint marka la sameeyo waxa la look fiiri deformity-ga aad ku arki doonta swan neck deformity bottom knee deformity ulnar deviation-kii metacarpal fluctuation-kii nodule-kii ulcer-kii waxyaabaha fiirin doonta feel garee tenderness-kii macnaha waxaa arki doontaa markii synovitis tahay lagu garto waxaa waaye haddaa dhinac kasoo riixdid jointiga korkiisa give away inay meel biyahaas u riixmeen arki doontaa give away-gaas aragtida waxay ku tusinaysaa inay isweeleen fluid meesha ku jireen synovitis ay tahay waxyaabaha kaloo fiilgareenka waxaa kamid ah balsihii qofkan waxaa ku dhaanay vasculitis yeelan doonaa kabacdina hadhowna laga yaaba inuu raynaud yeeshaan waxyaabaha kaloo laga yaaba neuropathy nervihii waxyaabahaas marka full examination of the oo musculoskeletal ayuu baahan yahay qofkan movementiga waxa muhiimadda aan ka hortagin waxay tahay qofkan inay movementiga ka halaabo farta hadduu soo laalaabi karin salaada tukan karin derbi cugsan karin farihii movementiga ka xumaada marka saddexdaas functionality-ga badanaa waxaa la bukaanka furaha soo qaad furaha irida ku fur guluusyaha fur button iyo unbutton samee waxyaabahaas hadduu samayn kara very good bukaankaas waa marka ka hortag inuu saas yeelan laabiska bukaanada waxaa ka soo baxay HB-ga slow normocytic normochromic anemia infection ma jiro iyo saaradii waa kacsan yihiin labadii xabo waa ka heshay handka x-ray markaa saartan waxyaabaha lagu yaqaano early waxa la changeska osteopenia labada joint meesha iska soo galaan inay macnaha dissolved bone osteoporosis-ka inay waxa ka horeeya osteopenia inay osteopenia ku hartay iyo marmar qaarkood inay aragtid erosionska inay aragtid osteoclastka meesha baabiyeen marka metacarpal waxyaabahaas nagu lahaa bukaankan almost so the diagnosis is clear this is rheumatoid arthritis very hard we didn't use somahan RCA criteria because oo ogtahay qofkii jointiga wristiga xanuunayo farihi yar yar dhanac xanuunayo almost 10 5 iyo 10 xagga ka soo dar wristiga laba xanuunaysa 12
ankalkii xanuunaa laba ankal ku dar 14 multiple joint soma ESR-kii ku sii dar marka qofkan 6 scorekii uu ka badan yahay marka inta badan qalin lama soo qaadayo just doing again and again saasa scoreka marka waxa waaye sidii faataxada camal ayay u degan tahay ayaa fiirinaya marka ACR-kaas isticmaalay hadduu shaki kaa soo galo maybe you will use it but it's not wax la xifdina la xifdina when the species goormuu shaki kaa soo galaa qofkii hadda inuu rheumatoid arthritis u yahay waxyaabaha shakiyada lagu qaldo waxaa ka mid ah differential diagnosis waxaa ka mid ah psoriatic arthritis asaga waxa waaye polyarthritis waaye autoimmune waaye multisystemic waaye maxaa loogu duwa asaga DIP marka asaga wuxuu baabashaa lafahu weerara waxaa ka mid ah distal interphalangeal jointiga kan kuwana muxuu ahaa rheumatoidka metacarbalka iyo proximalka ayuu ku egyahay marka kan waxaa loo soo skin rash Allah ku dhaa osteoarthritis qofka labada jilbood waa xanuun karaan so you have to rule out in it's not osteoarthritis age kii mechanical osteoarthritis waxa arki doonta bukaanka galabtii markii la gaaro 9 saac jilba ay xanuunayaan qofka rheumatoid arthritis wuxuu leeyahay 9 saac xilliga ugu fiican waa habeenkii ay daranayso waxda rhythmka soo kaco gout mono articular mar qaarkood yes uu kula imaan karaa bukaanka rheumatoid arthritis mono articular laakiin kan maxaa waa remitting remission bil ka hor waa fiicnaa complete waa fiicnaa nadiif aan noqday hadda hilib iyo waxyaabo kale cunaa ama renal failure oo ahaa again haddana waxaa imaada marka waxaa waaye remission iyo relapsing ayay ku cadi doontaa when suspicious ka shaki mar walbo asymmetric haddaa aragtid migrating laftaana xanuunaysa way fiicnaatay mid kale xanuuntay large jointiga shakiga kaa soo galaya monostaphniskii muhiimka ahaana waa kaa maqan yahay DIB-gii iyo back pain qofka dhabarka ma xanuunaa soo ma sacral joint maahan synovial joint waa fibrocartilaginous joint marka synovial hadduu ku dhaco dhabar xanuun iyo thoracic spine-ka ay xanuunayo iyo ribska ay xanuunayo markuu soo galaya marka meelaan ahayn hadduu rheumatoid factor negative yahayna shakiga kaasi galaa laakiin hadduu ka war leeyahay symmetrical polyarthritis small jointiga DIB-ga iyo metacarpophalangeal joint kuwaas hadduu ku leeyahay waa iloobaya rheumatoid arthritis factor waxaa ku calaamadeynaya bukaankaas zero negative rheumatoid arthritis because criteria intaan dhan oo soo buuxshay kan kaliya ka maqan marka 30% bukaanada RF iyo CCB-ga negative noqon doona haddaa aragtid bukaanka markuu ku imaanaya inuu leukemia yahay WBC-ga very low yahay iyo hebo C3 C4 complementiga aad u baabashay ka bacdeen waxa la cudurka ama wax kaliya waxa lagu yaqaanaa SLE-ga inta badan complementiga aad buu consumption ugu sameeyaa haddana cellka pancytopenia ayuu kula imaan karaa marka ka shaki bukaan pancytopenia kula imaada bukaan 5 sano 6 sano rheumatoid arthritis camal uga shakaysaneed x-ray saartay x-ray nadiif waaye macquul miya ma 5 sano waxa dhahna within 1 to 2 years deformity osteopenia iyo erosion ka arkaysaa marka bukaanada noocaasna inaa shaki ka soo gala ayaa loo baahan yahay see u manage gareyn bukaankii haddeer management inta badan ugu muhiimsan waxay tahay in laga dhigo bukaanka markii la manage gareynayo patient centered approach in bukaanka loo sheego dawadan qaada iska bax beri wuxuu farmashi kale hadduu farmashi kala tago oo maanta hore instant qaato haduu gastric lafiin si jaban baptic ulcer yeesho dembiga sadaas kale soo because you didn't give time marka you have to give bukaanka time patient education waa far and foremost I think bukaanada dadkan quraan saarka sameeyo iyo mudaawaadkan sameeyo waxa dadka aad uga shaqeystaan inta badan waqti badan ha saamiya hakamiya gabar ma qabti tan miya inta badan marka dadka Soomaalida waxay rabaan in wax sheegaan marka qofka intaas la sheekaysta waa jecel yihiin marka waa warankaas waa dhageystay laakiin adiga laba professor amal inkastoo professorka ninka ugu fiican oo waqti badan siiya bukaanka u yahay anaga Soomaalida waxa la professor ninka ugu xunaa professor waa baxsha ismicnaha waxa waa ninkaas waajib cilmiga caafimaadka lama jibiyo marka counseling inaa bukaanka u sharaxdo waxaan wax dhamaanaa maaha ina u sheegtid cudur walba inuu yahay cudurkan ma inta badan bukaanada waxay leeyihiin dawadan hadda darada ay bukaan qabay renal failure oo haddana heart failure stroke aspirin ka iska joojiyo leeyahay marka si uu sheegay marka waa bukaana saaxiibeen waxa dhana aspirin iyo adiga adduunka ka tagi doona marka macnaha waxa waaye dawadan cudurkan non controllable waa la control karaa laakiin cure ma sameyn karo rheumatologist hadduu available yahay referral inaa sameyno qof kaaga habboon way u daahinay bukaankaas meelo badan aan kala badan nin kaaga fiican yaqaano intuu 4 sano medicine sameeyo haddana 2 sano super specialist ku dar yes choose the better one ina marka hadda internal medicine ka joogo loo soo refer garay ka bacdina haddii lafa jajab iyo burbur gaana naga oo sii refer garay lafa tuutosiska inta badan waxa ka cararinaabo inuu orthopedic ku dhamaado Soomaa this is only physician waa physicianist waxa sameeyo marka isla markiiba physician u dirka waa multidisciplinary team yes cardiology pulmonology dermatology psychiatry depression it's depressing early morning soo ka xanuun waxyaabaha qabsan you have to involve all angles
hadda wixii waa haysanaa laakiin communicationkii ayaa naga maqan saa isku xiriir lahayn inta badan soomaalidana money oriented baanaan bukaanka dhakhtarka haddii loo diro dhakhtarkii baaritaanka ma aaminaya wax kale kugu soo dira haddii loo dhibaateen marka see kugu soo diraa beri bukaan aniga soo baaray haddii aad meesha aad kasii wadaynin marka referral point beti soma you have to start waxa aniga aan samayn ka hor ka duwan samee start please from there haddii laakiin aan arka bukaankii markuu isoo laabto isoo laaban doonaa war aniga CBC kuwan waa kuu diray haddana CBC lagu soo celshay CBC ma taagnaanina you have to go further biopsy waxyaabahaas waxa kuu soo diray noocaas waa inaad fahamtaan baahan yes waxaa dhahnay methotrexate demodulation inaan sameyno folic acid ugu darna waaye supportive management ugu darna waaye steroid bukaanka midda waxaa waaye haddii kale farmashiyo aadaa haddii kale xanuunka hore ka jooji bararka iyo deji steroid iyo NSAIDka isticmaal follow up samee 3 months sidea scoringka isticmaalaha ilmaamen shantii lafood xanuunaysa marka lafooda u fiicnaatay dawadii methotrexate side effect u keentay dawadii escalation ku sameeyay methotrexate 15 isticmaalay fiicnaa boqolkiiba 30 arkay haddana waa ku sii daraa Soomaa 20 gaarsiina 20 marka gaara meeshii ugu darwaajo another demand ka ku dari kara markaas ama isla markii wax u tiri weysa methotrexate hydroxychloroquine iyo lefonamide iyo sulfadoxine iyo triple regime iska bilaab mostly waxaan ka soo qaatay American College of Rheumatology iyo up to date ayaa isku soo daray aad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thanks for that was very informative talk and we really appreciate your time and effort. سؤالات جرو قدال با إن شاء الله تعالى كودينا هذا التام نوصل لطي دكتور حسن فيدو دكتور welcome. waxaa usii gudbaynaa qaybta labaad oo inoo soo gudbin doono Dr. Bashiir Indhacade oo ah dhakhtar orthopedic surgeon ah isla markaasna ka howlgala isbitaalka Dabiib Dr. Bashiir Cabdulkariim soo dhawaad doctor Dr. Bashiir mana maqlaysaan Dr. Bashiir codkaaga lama maqlayo mute kuma saarna waxyar raali hada Dr. Bashiir technical issues yar baa haysta insha Allah tacaala waa mar lagu nasoo gaari doona insha Allah دكتور أنت شو يعني وحي سؤالك قابتي ميديكال كذا شرح الله حيرو وفوز أو صفر كانوا كسيفة يسكنوا. Okay, Tori, that's a good idea. Dr. Hassan Fido, intaan maxay technical soo xalinayna hadda ku jirtid su'aalaha oo chat-ka ku soo qornay. Ama Dr. Maxamed Cabdullahi Naftikaaga maxay
اوكي دكتور محمد عبد الله سؤالها usii gudubna inta دكتور بشير soo xalinayo ان su-aasha koowaad su-aasha koowaad waxay leedahay dr maxamed yaasiin ayaana weydiiyey wuxuu leeyahay waa maxay xiriirka ka dhexeeya rheumatoid arthritis iyo myocardial infection wuxuuna weydiinayaa dhinaca treatmentiga wax xiriira miyaa ka dhexeeya buu leeyahay victoria treatment wise si loo dhigo sababta u dhacay waxay tahay inay atherosclerosis sameyso. One of the cause of atherosclerosis waxaa kamid ah high grade inflammation marka high grade markii inflammation kaas wuxuu keeni doonaa vasculitis main major vessels-ka coronary arteries-ka vasculitis kaas atheroma sameyn doono kaasa marka MI waxyaabahaas keeni doono marka daweyntiisa waxay tahay markii qofka in mar walba laga ilaaliyo inuu atherosclerosis yeesho oo ah in la hoos dhigo disease activity low remission ina targetkaaga tahay CRP-gaaga rheumatoid factor-kaaga waxyaabahaas ahaado marka daawooyin ku sameyn doono waxa waa demand scan midka anaga isticmaalo methotrexate-ka yes very good way way hoos dhigi doonaan atherosclerosis ka hortagi doonaan laakiin hadduu MI-ga for example ST elevation ima dhaco inta badan waxa waaye plaque inuu rupture dhaco thrombus sameyso at that time management-iga caadiga ahaada oo thrombolytic ama cath lab-kii loo carday waxyaabahaas noqon doonta laakiin waxaa ka hadlaynaa inuu bukaankan 3 times halis ugu jiro inuu atherosclerosis dhawayo atherosclerosis wuxuu ka imaadanaya because of vasculitis that's vasculitis kana wuxuu ka imaaday because of high inflammation cudurkan uu wato marka we have to reduce to lowest possible level inaan sameynaa دكتور محمد waa mahadsan tahay su'aal labaad waxaa jirto dhakhtar Dr. Cabdiqaadir Laha ayuu weydiinayo bukaanada oo rheumatoid arthritis-ka vitamins iyo calcium supplementation wax role ma ku leeyihiin xanuunkooda okay very good question waaye pointyada slides oo soo koobay maadaama soo daqiiqo la dhaho one of the another problem rheumatoid arthritis ku leeyahay waxa waa early osteoporosis bukaanadan hip fracture iyo waxyaabahaas iyo femur fracture uu ku imaan doona because of osteoporosis vasculitis-kii aggressive-kii lafihii jajabaya iyo dawooyinka aad isticmaali doontid for example NSAID haddaad high dose isticmaashid weliba bukaanka iska qaadanaya drug induced osteoporosis marka yes bukaanada haddaad siinaysid haddaad siinaysid dawada maxay ahayd steroid haddaad sameynaysid you have to give cover steroidka mar walba markaa sameynin waxaa loo baahay stomach cover in la sameeyo bone protection in la sameeyo yes mar walba la socda haddii osteoporosis noqotana bisphosphonatekii meelihii ayaa sii gaaraysaa yes bukaanka la soco hadduu steroid qaadanaya isticmaal hadduu marku kula imaanayo osteopenia waxaad leedahay fracture possibility-ga annaga ma isticmaalo DEXA scan waddanka noma yaalo laakiin because of osteopenia tiro badan aragtay waxaad leedahay fracture badan ay dhici karo yes you can start vitamin D supplementiga warka waxaa ka tagay supplementiga ee pain managementigii qofkii physiotherapy loo sameynayay haddii la siinayo stomach omeprazole waxyaabahaas la siinayo marka many things supportive managementiga dhan waa isticmaali kartaa hadduu u baahan yahay bukaankaas case meesha ku qoran Dr. Maxamed okay hay kiiska daa aragto okay kiiska wuxuu dhahaa bukaan loo isticmaalo rheumatoid arthritis acute failure la imaaday yes bukaanka rheumatoid arthritis haddii ay damisid hadduu infection waxyaaba ku dhaco haddana failure uu imaan doonaa laakiin rheumatoid arthritis waa daweeye ma dhihi kartid NSAID intaa isticmaashay bukaankiiga yes NSAID-ka waxa waaye bararkii wuu dejin doonaa xanuunka wuu dejin doonaa laakiin inflammatory response-gii inay rheumatoid factor-kii yareeysa iyo waxyaabaas ma sameyn doonto marka NSAID-ka waa laga tegay in la isticmaalo yes you cannot use NSAID for long time waa bukaan waqti ayaa ka dhuminaysaa bukaankaas waxaa loo baahan yahay demandation early demand haddaa bukaanku waa fiican yahay haddaa aragtid aa fiicnaatid mar walba yes inuu remission ku jira laga yaaba laakiin NSAID macnaha coverage bridging ayaa u sameynaysa xanuun baabi'i iyo isweelindejiye isticmaali doonta maahane
labada marka early demarcation 2019 iyo waxyaabahaas waxaa la isticmaali jiray NSAID laakiin since 2000 kale maalaba deformity si looga hortago demodation ayaa la isticmaalaa demodiska methotrexate bukaankaas in loo bilaabo ayuu u baahan yahay hadduu totally rheumatoid arthritis yahay no role for NSAID at all. دكتور aad u mahadsantahay qof kaleeto deeqa la dhahayo su'aal waxay qabtaa dhaxalka iyo rheumatoid arthritis waxay dhahday qof waalid ayaa wuxuu u dhintay complication oo methotrexate marka dhaxalka iyo rheumatoid arthritis waa maxay su'aashaas waa mid su'aal kaleeto haddii aan raaciyo qof kale ayaa wuxuu uu leeyahay rheumatoid factor negative maxaa importance uu leeyahay rheumatoid arthritis-ka. Okay, su'aal muhiim ah waaye midda koowaad bukaanka dhaxalkan soo sheegaynay bukaanka dhaxalkan for example inta badan midda ugu muhiimsan waxaa waaye HLA D2ga DR2ga iyo DR4ga kuwaas ayaa qaadaan kuwaas qofka laga leeyahay yes bukaanada kale dadka kale caadiga ayuu halis uga jiraa laakiin doesn't mean qofkaas inuu 100% noqonayo rheumatoid arthritis sida diabetic ina cidi riski badan ay jira soma hadii laakiin qofka uu ku darsado inuu asagii macaan cuno asagii cayilan yahay oo kaleeto oo isku darsamaya soma multi systemic marka adigii hadii taas adoo qabo aad smoker tahay taas adoo qabo adada risk factors kaleeto infection iyo viral infection waxyaabahaas ku geystaan marka genetic epigenetic iyo environmental isku tagtaga ayaa ku keeni doona rheumatoid arthritis. Su'aasha kale Dr. Said maxay ahayd rheumatoid negative arthritis. Yes, very good question muhiim waaye xaggii prognostic ahaantay maxay naga duwi doontaa su'aashaas exactly boqolkiiba boqol I didn't read it ma hubo inay rheumatoid prognostic shaqa ku tahay laakiin prognostic waxaa ku jirta rheumatoid negative hadduu yahay good prognosis waa good prognosis macnaha waxaa ka baqaya multi systemic effectiga ma leh the more uu rheumatoid factorkaaga badan yahay the more dangerous aad tahay the more uu yar yahay ama ever uu yahay targetkayga waxa waa remission in ever ka dhigo the more better marka prognostic saas u fiican tahay laakiin exactly ma prognostic mortality ahaan ma ka duwan yahay yes hadda score ahaan u fiirino waa dhihi karnaa laakiin sida kale detail dheer in u baahna inaan baaro. Yes, methotrexate long life isticmaal karaa yes haddii waxaa samayn doona diseaseka escalation uu leeyahay methotrexate haddaa isticmaashid dooskii aa gaartid 15 isticmaashid bukaankii 3 months ku imaaday perfect waaye wax dhibaato ma qabo you give another 3 months still perfect waaye yes maybe dooskaas ayaa ku maintain garanaysaa ama you can waxaa samayn doontaa inaad dooska ka yaraysid low dose bukaanka waxaa dhaana cudurkan maaha treatable muhiimadda ugu weyd waxa waaye cudurkan markii la daaweynayo ma curable ma daweysa boqolkiiba boqol may remission ku hayso ma daawada ayada remission ku hayso marka ka qaadin marka low dose keenso low dose kaas ku haya marka haddii daawadaas aad bixisay definitely almost rheumatoid arthritis once it develop it will always macnaha flare iyo relapse u yeelan doonaa. Dr. su'aalaha intaas ugu muhiimsan su'aalo directly waxaa jiro laga yaabo dadka inay naga soo daaheen weydiinayo oo calaamadaha Dr. Siidu Dr. Bashir si fiican lagu maqlaa raalli ahaada xoogaa yar waxa waaye technical problem yar aan qabsada dhamayso markaa dhamaysta ku soo galaya Dr. Maxamed su'aalaha oo kale oo iska general oo dadka weydiinayaan methotrexate laga soo tago daawooyin kaleeto oo muhiim methotrexate marka laga soo tago oo dadkan loo isticmaali karo iyo su'aal kaleeto calaamadaha ugu muhiimsan oo diagnostic criteria ahaan dadkan lagu ogaan karo maxaa waaye su'aalo xoogaa iska direct oo laga yaabo in hore ku faldan qofka soo daa laga yaabo absolutely absolutely slides-ka maybe la share garaynayna insha Allah هذا ما سنتاي جزاك الله خير دكتور عبد الصقر thank you so much yaa qofkaas maxay heeto waxaa u maleynayaa gadaal buu nagala soo xiriiray gadaal buu naga soo haleelay laakiin insha Allah Dr. Maxamed Cabdullaahi casharadiisa haddii uu nasiyo insha Allah page-ka Telegram-ka ayaa laga heli doonaa meeshaasana ka helaysaa calaamadaha iyo doctorka inta uu ka hadlay oo maxay heeto very informative thank you Dr. Maxamed Cabdullaahi Aadam aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga hadda waxaa kusoo dhaweynaynaa Dr. Bashir Cabdikariin Dr. Indhacade oo ah dhakhtarka howlgala isagana isbitaalka Dabiib Specialist Hospital General Director kana ah
دكتور بشير سودو وأنا دكتور أورثوبيديك سيرجن. دكتور بشير. dr. abdirasaaq waa mahadsan tahay. waxaan filayaa in si fiican lay maqlo. haddii aan lay maqlinne waxaan jeclaan lahaa in lay jawaabo. dr. abdirasaaq. aad iyo aad lagu maqlayaa دكتور loud and clear. okay. asalaamu calaykum raalli ahaada dhammaan inta meetingka ku jirta maanta nalagala soo qayb gashay aad iyo aad ay umahadsan tihiin. sharafi karaama ii tahay inaan maanta programkan ka qayb qaato. torkeyga saaxiibkay Dr. Maxamed Cabdulaahi isagana aad u mahadsan yahay wax badan oo la xiriira rheumatoid arthritis-ka aan maanta topigeenu yahay aan ka hadlayno oo faahfaahin fiican naga siiyey isagana aad ugu mahadsan yahay. qaybta kaga aadaneed therapy ahaan medicationka iyo qaabka loo daaweeyo oo noo sharxay oo ku mahadsan yahay. aniga qayb ahaan waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha surgicalka sida surgical ahaan loo daaweeyo ama qalliin ahaan loogu daaweeyo rheumatoid arthritis-ka ayaa ka hadli doonaa maanta. rheumatoid arthritis-ka qeexitaankiisa iyo waxaas oo dhan si faahfaahsan oo mug leh doctorka inoo faahfaahiyey. waxaan isla garanay inuu yahay immunotake-ka inuu attack ku ahaanayo oo pain iyo waxyaabaha ugu muhiimsan swelling iyo stiffness iyo uu leeyahay. macnihii in loo daaweeyo qaabka loo daaweeyo dhakhtarkaa sharxay waqti badan ku luminayno. maxaa muhiim ah inaan fiirino rheumatoid arthritis managementigiisa oo surgicalka bukaanada marka loo fiiriyo dhanka qaliinada waxaase qaabka loo maareynayaa inaan ka hadalno. muhiimadda ugu weyn oo horta surgicalka loo sameeyo waxay tahay qofka xanuunka uu dhibay maxaan ku dhahaa dawo lagala daalay 6 bilood 7 bilood la daaweynayay in maxaan ku dhahaa uu functionally uu ka raysto uu dareemo pain relief inuu dareemo iyo inuu movementiga ama jointiskiisii uu noqdo mid caadi ah. waxaan ku dhahaa radiologically waxaa jira classification oo laser score loo fiirinayo. dabcan qaybta radiologiga ayagan taban ay qaybta macnihii dhakhaatiirta lafaha markay fiirinayaan scores marka waxaa jiro oo waa badan yihiin laakiin mid kamid aan kasoo qaadanay. 0 waxa waaye macnaheeda normal joint waaye oo wax janji ah kuma dhicin radiological marka la dhaho. number 1 scoreka markuu noqonayo waa marka osteoporosis iyo maxaan ku dhahaa swelling oo jiro. as radiology ahaana siday u ekaanayso next slide aan ku arkayna. score 2 waxa waaye in macnihii joint space-ka ama waxa kala goysyada space-ka u dhexeeyo inuu yaraado iyo in lagu arko erosion oo raajada laga arko. significant erosion in lagu arko ama moderate oo inuu burbur ku yimaado oo meel dhexe ah. kan afraad score 4 waa in macnihii uu lumo joint space-ka inuu lumo inuu si aad ah usii burburo kala goyskii. kan ugu dambeeya score 5 ah waa inuu dhaca waxa la yidhahda ankylosing oo ah in macnihii kala goyskiiba meesha uu ka baxo oo lafihii isku samaysmaan ama isku talmaan. raajada saa ka aragnaba x-rayda koowaad waa wrist jointiga waaye osteoporosis and swelling oo ka muuqanayso raajada laga arki karo. sawirkan labaad waa inuu macnihii joint space-kii inuu yaraaday oo space-ka u dhexeeyo kala goyska inuu aad usoo yaraado. somehow erosionsna wuu leeyahay oo geesahan waa laga arki karaa erosionska. sawirka labaad saa ka aragtaan xoogaa kii hore uu ka yara daran yahay oo waxaa arkaysaa inuu kala goyska aad isugu dhawaaday more erosions ay ku sameyn kala goysyada qaar isku dhegdhegayaan. kanoo kale isagana wuxuu noqonaya dhammaan joint space-kii oo meesha ka baxayba oo arjoodii iyo wixii dhan ay ka baxeen oo lafihii toos isu qabsadeen.
kana waa ankylosing marka la leeyahay kala goyskii oo dhan aan isku samaysmay waxa dhaqaaqa iska dhaafay inna ma laha lafihii meeshii jointiga ahayd waxa dhan meesha way ka baxeen so next maxaa marka ama muhiimadda ay tahay oo qaliin loo sameynayo qaliinka goorma la sameynaa waa markii dhammaan waxyaabihii oo lagu daaweynayo rheumatoid arthritis-ka ay noqdeen kuwa faylid ah oo haddii treatment la dhaho injectionskii kala duwanaa la isticmaalayo everything markuu faylid noqdo ayaa markaas kadib ayaa rheumatologistaha iyo wuxuu muhiim ay tahay inuu ka hadlo sidii loo sameyn lahaa another optionka ugu dambeeya surgeryga mar walbana wuxuu noqon doonaa optionka ugu dambeeya oo loo sameeyo bukaanada qaba rheumatoid arthritis-ka maxaa ujeedka laga leeyahay waxay tahay in laga helo positive result oo surgerygaas ah waxyaabahan waxaa cytomiska oo in joints ku arkayo kala goysyada sidaan oo kale u barbarayaan notiska ay ku samaysmayaan iyo deformity in macnaha qaloocaas qofkaas xaaladda markuu gaaro way adkaanaysaa nolosha caadigeeda inuu wax ku qabsado oo intaan usii weheliyaan xanuunkii iyo dhibaatadii kale oo ka seexan laayahay qandhadii gaarka u ahayd waxaasoo idin waa badan yihiin ilaa waxaan kasoo qaadanaynaa 7 qodob qodobkeena ugu horeeyo waxay tahay optionka koowaad inaan u sameyno waxa la yiraahdo arthroplasty ama replacement in loo sameeyo surgeryga noocaas joint replacement loo sameeyo mostly marka arthroplastiga waxa loo sameynaya waxay tahay kneega iyo hip jointiga waa kuwa ugu caansan ama jointska ugu waaweyn oo loo sameeyo arthroplastiga total knee and total hip replacement-ga waa waxyaabo kale oo ay sababeen qofku markuu rheumatoid arthritis develop gareeyo waxaa dhici karto in kala goyskii waxay baabi'inaysaa caabuqii inflammationka waxay baabi'inayaan harjawdii taasoo marka dambe resultigeeda oo ka dhalanayo markii damage uu gaaro jointigii inuu osteoarthritis inuu maxaan ku dhahaa ay yimaado sababa waxyaabaha oo keeni kara kamid tahay oo in jointigii markaas la bedelo in markaas rheumatoid arthritis-kii ku dhacay kala goysyadii uu noqdo uncontrolled inflammation oo caabuq aan macnii la controli karin haddii daawo kasta la siiyo waxyaabahaas oo dhan inuu dhaco inuu adkaado synovial membrane-ki inuu adkaado haddii marka oo inflammationka controlled uu leeyahay maxaa uu sameynaya harjowdii uu dhaawacaya oo kala goys ku dhexaysay xanuun uu keenaya stiffness uu keenaya mobility of the and range of motion macnii kala goyskii inuu dhaqaaqo u laablaamo ayay hoos u dhigaysaa sababtaas darteed marka waxaa lagama maarmaana markaas oo kale in marka la aado surgical treatment oo optionkeena waa sida hadda sheekeynay markii xal loo waayo non-steroid drug anti-inflammatory drugskii la siiyo qofkii physiotherapy loo sameeyey corticosteroid injections la siiyey weli waa soo taagan yahay kala goyskii waa sii burburaya oo jointiskii xanuunka uu jira stiffnesskii wixii oo dhan waa si kala goyskii sii adkaana qofku ma laabi karo noloshii dhibay ku noqonaysaa even haddii la sameeyo xataa supplementation in la sameeyo oo hydrochloric acid lagu shubo kala goyska dhinacan ugu shubo oo weli still ciladii way taagan tahay so markaas xalka uu noqonaya in la sameeyo qaliin la sameeyo surgery total knee replacement marka la sameynayo waxaa badanaa loo sameeyaa in qofka si dhan la wada suuxiyo dhabarkana ama dhabarka laga suuxiyo labadaba option waa la isticmaalaa so waxaa la bedelayaa marka jilibkii
dhammaan intii lafihii burburay iyo jointigii iyo cartilagekii iyo synovial membranekii all of them waa la bixinaya waa la nadiifinaya waxaa la gelinaya marka implantigii oo lagu sameynayo knee replacementigii in loo sameeyo qaab ahaan shayb ahaan qaabka uu kusoo baxayo raajada marka oo la saaro qofka oo loo sameeyo total knee replacementiga qaybtan waxa waaye distal femur componentigi in implantiga loo xiro dhexdooda hadda raajada kama soo muuqanayo waxaa ku jiro caaga ku jiro oo kala ilaalinaya in birihii ay iga isxoqaan almost marka waxaa laga dhameeyey in intii oo rheumatoid arthritis-ka uu baabiyey oo inflammationka ahayd wixii dhan marka laga kalin kanoo kale waxaa la waaye partial replacement in loo sameeyo qofka carjawdii intacted waa qaybtan problemka ugu badan wuxuu ka haystaa medialka oo joint spaceka meesha uu ka baxay si marka oo loo minimize gareeyo maadaama carjawdii iyo seedihii iyo wixii dhan ay intact yihiin problemka ugu badanna qofka u hayo inay loo sameeyo partial knee replacement in loo sameeyo qaab ahaan sidaan uu soo muuqanaya qofka mini invasive waayo uu yaryahay waqtiga uu recovery uu ku sameynaa marka kan loo sameeyo kan marka loo sameeyo difference u dhexeeyo bukaankan oo rheumatoid arthritis bilateral knee sashayna wax ku sameeyo palliative complication so qofkan oo kale sawirkan saa ka aragtaan koowaad waxa waaye jilibka qalooc uu sameeyey muddo badanaa wuxuu la dhibaatoonayay rheumatoid arthritis waxaa meesha ka baxaya cartilagekii all of them joint space ma jiro oo jilbihii waxaa qofku ma laabi karo oo isku tolmeen haddana waxaa intaas jeeda deformation uu sameeyey lafihiisa very weak waayo oo very tink waayo so marka halka oo qofkan treatment marka waa lagala daalo waa ka gudbaya waa u gudbaya marka in loo sameeyo total knee replacement oo arrintiisa xanuunkaas iyo ugu gudbo also marka waxaa kaloo la sameeyaa in maxaan la sameeyo total hip replacement ama total hip arthroplasty same that way waa isku mid sida nigoo kale loo sameynaya ayagana waxaa la bixinaya qaybtii damageka head of the femoral in la bixiyo acetabulumka sidoo kale la nadiifiyo areadeeda wixii damage garaysan markii clear laga dhigo implantigii halkaas lagu supply gareeyo so way kala duwan yihiin cemented waa almost decisionkaas orthopediga ama surgeonka samayn doono ayaa decisionkeeda gaaraya lafta haddii osteoporotic maxaa wanaagsan qofka daadiisa waxyaabo badan ah marka la fiirinaya oo marka la sameynayo qaliinkan la yiraahdo total hip replacement qaab ahaan raajada marka la saaro qofka sidaan oo kale usoo baxaya total hadda qofkan waxaa loo sameeya bilaterally oo replacement loo sameeyey sintii midig iyo tii bidix labadaba waa la bedelay so kan oo kale steamka ama verticalayso lafta femoral bonka wax cement kuma jiro because of waxay leedahay sida sawirka midigkaaga muuqato tiiga riigooyinkan ay leedahay because lafta way la falgeli kartaa so دكتور بشير ميت أياك فولي هذه ميت كسكاديد
Dr. Bashir waxyaro technical ayaa qabsaday waxyaro raali ahaada sabab sorry ma hadda waa lagu maqla maqlayaa sorry welcome back waa lagu maqlayaa ha shaashada bas screenkaaga lama arkay adduunyada kale almost total elbow replacement waa la sameeyaa sida hadda raajada idinkaga muuqato erosion badanaa ka dhacay jointigii soo ma jeedin sorry screenkaaga ya screenkii waa naga baxay nala share garay mar kale okay hadda ma la arkaa ha tore ha waa la arkaya tore adduunyada kale waxay maraysaa in oo la sameeyo in elbowga jointiga la bedelo saa inta ka aragnaba sawirkan jointigii waxa waaye uu isku arjowdii meesha way ka baxday lubricationka wixii dhan meesha way ka dhammaadeen fluidkii maxaan ku dhahaa uu ku dhaqaaqaya kala goysku meesha uu ka baxay erosion badanaa ka dhacay so xaalka maxay noqonaysaa xaalka waxay noqonaysaa in loo sameeyo total elbow arthroplasty in loo sameeyo oo la bedela almost marka waxa waaye scoorka wuxuu qaadanayaa 4 iyo 5 inuu isku dhago kala goyskii oo dhaco loss of joint spaceki inuu dhaco adduunyada horumartay iyo Europe-taba hadda almost waa practice-gareynayaan oo waa laga isticmaalaa in la sameeyo total waist joint laakiin in Africa I don't meelaha qaar inaysan ka jirin ayaan filayaa Soomaaliya weli maba soo gaarin ba naga herkan laakiin waa rajaynaynaa inaan gaari doono joint spaceki meesha uu ka baxay oo qofkii haddii daawo keliya la siiyo xal ma u noqonayso oo xanuunkii weli wuu taagnaanaya deformity weli wuu taagnaanaya so this is optional oo waxa waaye in loo sameeyo arthroplasty in loo sameeyo oo la bedelo kala goyskii oo loo abuuro kala goys cusub optionka labaad ama qaliinka labaad oo optional u ah loo sameynayo wuxuu noqonayaa in loo sameeyo arthrodesis ama laba lafood jointigii markii laga bixiyo in la sameeyo laba ama saddex lafood laisku fused karayo yani inay lahaanin wax movement ah kuwee loo sameyn karaa marka waxaa muhiimadda tahay waxay tahay jointiska qofka oo sababayo yani in oo haddii for example qofkan in la sameeyo arthrodesis waxaa u habboon farahoo kale jointiskooda yaryarka almost hadda adduunka uu soo gaaraya nafkeeda wadamada qaar oo hormaday way sameeyaanba in yani fingerska jointiska u dhexeeya la bedelo wrist jointiga saa hadda kusoo aragtay slide spineka oo kale ankle jointiga almost waa la sameeyaa isagana replacement lagu sameeyaa waa optional laakiin haddii laga maarmi waayo waxaa loo sameeyaa arthrodesis oo in qofkii si loogu guuro ama loogu yareeyo xanuunkii iyo cartilagekii iyo contactigii ay sameynayeen jointigaas uu sameynaya in iyadana waxay noqonaysaa option surgical option ah in loo sameeyo qaliin noocaasa oo almost adduunyada hadda waa laga practice gareeyaa in Soomaaliya xataa waan ku sameynaa haddii laga maarmi waayo sida qofka macnihii hip jointiga knee jointiga shoulder jointiga waxaa la isku dayaa in replacement caadi loo sameeyo aanan la infuse karayn oo laisku xirin oo arthrodesis loo sameyn qaabkee loo sameynayaa hadda qofkan oo kale saakaratiin gacantiisa almost way qalloocatay deformity samaysay xanuun ziyaaday ku haysaa marka in marka la sameeyo plate oo shapekeeda sidaan uu yahay iyo screw lagu fixed gareeyo oo qofka gacanta wax movement ma sameynayso so si markaas wuxuu helayaa relief fiican oo xanuunkii iyo wixii uu ka baaba'aya arthrodesis loo sameynaya oo labadii kale jointskii aa laisku fixed gareynaya farahoo kale oo lugahoo kale in loo sameeyo oo qalooca deformityga laga bixiyo lagu toosiyo si macnihii loo yareeyo xanuunkan iyo uu qofku ugu baabao
maxaa kaloo la sameynaa option 3ga qaliinka saddexaad ee loo sameeyo waxay tahay in loo sameeyo synovectomy qaliin la yiraahdo oo ah in la bixiyo jointiska wuxuu leeyahay soft tissue-ga ama membrane-ka oo synovium membrane-ka in meesha laga saaro oo inta caabuqsan obinna waa loo sameeyaa oo in la furo oo jointigii la furo oo sidaas loogu saaro ama in loo sameeyo sida for example oo kale haddii jointiska waaweyn oo kale sida kneega oo kale in markaas lagu sameeyo arthroscopic lagu sameeyo waa tegi doonaa iyadana because of waxa waaye rheumatoid arthritis-ka wuxuu sameynayaa more damage uu ku sameynayaa dhibaato badan uu keensanayaa carjowdii iyo soft tissue ku hareeraysan jointiga so qofka marka waa inuu la yimaado inflammationkaas inuu keeno marka swollen painful and something like that inuu keeno waa waxa hadda ka sheekeynayna keliya waa markii qofka oo almost 3 bilood ilaa 6 bilood daawo soo qaadanaya wax hadda oo result ya good weyn uusan ka helin in markaas loo sameeyo xal uu noqon karaa in qaliinkan loo sameeyo synovectomy loo sameeyo oo laga saaro soft tissue-gii oo ku hareereysnay jointiga si loo yareeyo dhibaatada ama khatarta ama burburka kusii imaanayo kalagoyska sawirka saa ka aragtaanba hadda waa in la furay jointigii oo soft tissue-gii waxaasna goormada waxa waaye markii oo loo sameynaa waa markii cartilage-ka ama carjowda kala goyskaas u dhexaysa infected ay tahay kara in areada soft tissue ku hareereysan laga saaro waxaa looga sameyn karaa obinna waa looga sameyn karaa arthroscopically oo optional ahna waa haysanaa oo obin sidaana waa arthroscopically-na waa looga sameyn karaa qodobka afraad ama surgery-ga afraad ee aan u sameynayno bukaanada la dhiban rheumatoid arthritis-ka waxaa ka mid ah in loo sameeyo arthroscopic surgery kaasoo saaru sheegnay xal u noqon karo in macnihii la yareeyo dhibaatada iyo xanuunka uu ku hayo rheumatoid arthritis-ka jointiska waaweyn tusaale ahaan oo kale sida in knee jointiga shoulder jointiga in loo sameeyo arthroscopic surgery this waxa waa common way maxay tahay marka waxyaabaha loo sameynayo waxaan si loo yareeyo damage-ka ama dhibaatada uu geysanayo jointiga rheumatoid arthritis-ka faa'iidooyinka maxay tahay marka oo laga dhaxlayo ama uu ugu fiican yahay advantageska arthroscopic in loo sameeyo synovectomy lagu sameeyo in macni incision-ka ama dilaaca la dilaacina inuu yahay mid yar haddii aan dhahno openka waxaa damage gaara quadriceps muscles-ka iyo wixii marka infection riskiga uu kordhaya laakiin arthroscopiga quadriceps-ka waxa waaye muscle waa injected waaye waa sidiisu ahaanaya in macnihi la yareeyo infection-ka in macnihi hoos loo dhiga hemarthrosis-ka ama kala goyska inuu dhiig soo galo inuu yaraado post operative physiotherapy-ga ayadana waqtiga la sameeyo inay yaraato oo time yar ay noqoto oo qofkaas loo sameynayo physiotherapy sawirka saa ka muuqato sida ka muuqato sawirka arthroscopic synovectomy marka la sameynayo jilibka oo kale hadda bukaankan waxaa loo sameynayaa arthroscopic oo synovectomy aa lagu sameeya areada oo jointiga soft tissue-ga oo damage ka soo gaaray oo inflammation ka saameeyey ayaa waxaa lagu sameynayaa operation oo arthroscopic surgery ah so muxuu ka samaysan yahay marka asaga waa laba camero tubadan arkaysa halkan kale so waxa waaye cameradii oo maxaan ku dhahaa jilibka incisionka aad u yar yahay tanna waxa waaye gacantii kale kasoo jaraysay waxyaabaha inflammatedka ah in maxaan ku dhahaa
halkaas procedurekaas yar loogu sameeyo qofkan dabcan wuxuu ku helayaa faa'iido badan sometimes for diagnostic waa loo isticmaalaa arthroscopic surgery-ga in macnihii diagnostic ahaan loo sameeyo oo maxaan ku dhahaa oo in laga soo qaado sometimes dhacaan laga soo qaado in lagu soo nadiifiyo in daawo lagula shubo it can do so interoperation image-ka oo hypertrophic synovium-kii maxaan ku dhahaa qaabka uu ekaanayo sawir ahaan marka arthroscopic lagu sameynayo halkaas laga soo sawira qaabkan oo kale u ekaanayo waxyaabaha in lasoo jaro si halkaas loo nadiifiyo in la sameeyo waxaa dhahnay markii oo qofkan ku dhaco rheumatoid arthritis especially small joints ko aad u saameeya waxaa dhacdo marka in gacantii qofka uu ku dhaco waxa la yiraahdo carpal tunnel release in loo sameeyo kaasoo xal u noqonayo markii uu bukaanka wuxuu dareemayaa kabaabka gacantii qaybaha hore in wax durdurayaan cirbada camal lagu durdurayo faraha ka durdurayaan xanuun ziyaada gacantii oo awoodda ka tagayso oo tabar daran saas marka maxaa dhacaya in marka pressure uu saarmo medial nervihii oo gacanta maadaama caabuq iyo wixii dhan tendoniska dhan adhesion ay sameynayaan isku soo aruurayaan in medial nervihii uu compressure garo saas darteed si marka loo helo gacantii aysan u noqonin dhibaatadeedii ama khatarteeda oo rheumatoid arthritis ay ku sababaan usii badanin waxaa la sameynaya marka in jeexid yar loo sameeyo oo skinka ah isla markaana release loo sameeyo oo nervihii areada sawirka basaa ka aragtaan halkan obin yaraa la sameynaya qofka waxaa dhacaysa marka in oo capsuladii ama xoog ku dahaarnaa releasing marka lagu sameeyo tan nervihii uu helo free xanuunkii iyo kabaabyadii iyo wixii ay ka yaraadaan waa iyada another optional kale oo surgery-ga xalka u ah rheumatoid arthritis-ka waxaan dhahnay in la sameeyo tendon transfer because waxaa dhacayso in rheumatoid arthritis-ka ay sameeyaan muscle damage ama muscle injury taasoo marka sabab u noqon karto in marka la sameeyo ama gacantii deformity-ga sameysay in la sameeyo tendon transfer ama seedii la wareejiyo oo positionkeeda laga wareejiyo sawirka saa ka aragtaan gacantan oo kale saartiin waxaa loo sameynayaa tendon transfer obina loo sameeyo waa loo furi after operation qaabkan u ekaanaysa oo gacanta awal ma fidin karin oo damage soo gaaray ama rupture ku dhacay because of rheumatoid arthritis-kii uu sababay darteed maxaa marka riskiga ama khataraha ka imaan karo qalliin walbo oo la sameeyo riski uu leeyahay oo taas waxa waaye dhammaan surgery-ga dadka way ogyihiin bleeding imaan karo infection imaan karo in macnii nervihii ama soft tissue-gii inuu macnii damage ku yimaado imaan karto in xinjirow uu ka dhaca dhici karto deep vein thrombosis inuu dhaco pulmonary embolism inuu dhaca dhici karto waxyaabo badan oo common oo riski ah oo ka dhalan kara jiro surgery-ga so maxaa marka qofka la habboon oo maxaa inuu weydiiyo waxaa habboon inuu su-aalo kooban oo su-aalahan weydiiyo bukaanka uu weydiiyo rheumatology-giisa before oo surgery-ga intaan lagu soo ma jiraa other oo xal macnihi ama medication haddii ahaan le
دكتور بشير عدك يا لما مغلق ميت يا كسارا. دكتور بشير خدك يا كجوعي سيدة كم موقتها. نعم. دكتور خدك إنترنت كجوعي ومحيها تو أحس لي هي جب أيو كسي جري. دكتورka gabagaba ayuu ku jiray aad iyo aad u mahadsan yahay Dr. Bashir Cabdikariim Dr. Enda Cade wuxuu aad uga hadlay qaybta surgicalka ah mainly oo maxaa ahaato haddii deformity imaado oo correction in lagu sameeyo la toosiyo haddii maxaa ahaato joint destruction weyn uu dhacana qofkaas uu u baahnaanayo maxaa ahaato joint replacement ama maxaa ahaato fusion wixii markaas maxaa ahaato la awooda asagoo ka hadlay in qaybo fara badan oo ka mid ah hadeertaan aan replacementigooda la sameynaynin oo only option ay noqonayso fusion and fusion kana in ay tahay the last option oo mar walba loo sameynayo qofka markii maxaa ahaato wax walba kale maxaa ahaato ay wax u tari weyso aad ay u mahadsan yihiin Dr. Maxamed Cabdullaahi Aadam oo ah dhakhtar internal medicine ah ka howlgala isbitaalka jaamacadda Jazeera oo maxaa ahaato qaybta medicalka si informative aad maxaa ahaato uga hadlay jazakallahu khayra iyo Dr. Bashir Cabdikariim oo asagana ah dhakhtar orthopedic surgeon su'aalaha qaarkood oo badankood waxaa ka heli doontaan insha Allah tacaala slide-yada for example the best medication hadeertan lisweydiinayo for some who have knee or wrist pain maxaa ahaato meesha macnaha ma ahan in qof walba oo pain u haysto maxaa ahaato kala goysyada ma ahan in ay tahay rheumatoid arthritis haddii dib ugu noqotaan slide-yada Dr. Maxamed Cabdullaahi iyo Dr. Bashir insha Allah tacaala aad baa maxaa ahaato faa'iido fara badan uga heli doontaan iyo videoga naftirkiisa oo live aha Facebook ka heli doontaan aad iyo aad ay u mahadsantihiin jazakumullahu khayra sorry caaw waxa waqtiga xoogaa waa dheereyna casharka oo aad iyo aad muhiim u ahaa darteed aad iyo aad ay u mahadsantihiin insha Allah tacaala ilaa maxaa ahaato aan ku kulanno insha Allah casharada soo socda aad u mahadsantihiin waxaan kusoo dhaweynaa kelmadda ugu dambeysa in uu noo xiro Dr. Sayid Cumar oo ah madaxa Orthopedic Association ee Soomaaliya Dr. Sayid دكتور عبد السلام هذا وما سنتهاي دكتور بشيري دكتور محمد عبد الله هنا هذا وماسين وهو CME المدل السواي والإنفورماتيفا أتليس راح تيرتا أرضا جنرال فيزيشنز فلما أنا قلقا يبقلين وحرجين إن أي وحبضا أو تيكو مسيج كقاتين دكتور عبد السلام هذا iyo دكتور حسن إنتن قلقا يبقلين هذا وماسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.